السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal waxaad ila dhagaysataa hadalkan waxa lagu yaabaa inuu ku anfaco. shaqiiqul balkhi in la yiraahdo ayuu wuxuu yiri Ibraahim ibn Admah wuxuu ahaa mid ku socda suuqyada magaalada Basra asoo socdaalkiisa ku jira ayaa waxa agtiisa yimid dad badan kadib waxay weydiiyeen macnaha aayadan ud'uuni astajib lakum waxayna yiraahdeen anaga alle waan barinay haddana mana ajiibin yacni ducadeena ma ajiibin. Ibraahim ibn Admah ayaa wuxuu yiri idinku qulubtiina waxa dhaawac u geystay 10 shay yacni wuxuu ku sheekaynayaa dadkaasi qulubtooda in ay 10 shay dhaawac u geysatay. 10 shay ayuu noo tirinayaa. kow ilaahay waad garateen laakiin xaqiisa ma gudan. 2 kitaabka alle waad akhriseen laakiin kuma camal falin. 3 waxaad sheegateen inaad shaydaan codowkiisa aad tihiin laakiin haddana waad xariirinaysaan. 4 waxaad sheegteen inaad jeceshihiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam haddana sunnadiisa iyo raadkiisa waad ku tagteen. 5 waxaad sheegteen inaad naarta ka baqaysaan laakiin haddana dunuubta kama herin yacni dunuubta iskama daynin. 6 waxaad sheegteen in geerida dhab tahay haddana diyaargalow ma samaynin. 7 waxaad ku mashquusheen ceebaha dadka kale ceebtiina waad ilowdeen. 8 waxaad cunaysaan irsaaqda alle haddana ma u mahad celinaysaan. 9 waxaad sheegteen inaad jeceshihiin jannada haddana shaqadeeda ma qabataan. 10 waxaad duugaysaan dadkiina dhintay haddana kuma cibro qaadanaysaan. walaal 10kan shay anaga ayaa maanta na haysataa aan iska daaweyno marka insha Allah waan idin rajaynayaa. wassalaamu calaykum.